الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد. ودرسigii 55aad ee tafsiirka quraanka waynu ka bilaabayno suuratu dukhaan. qaala allahu jala wacala xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik walkitaabi kitaabka ayaan ku dhaartay, kitaabkii almubiini xaqa iyo baadilka kala caddaynayay, ama kitaabkii almubiini caddaa ee aayaadkiisii wuxuu ka hadlaya ay caddaayeen. innaa anagu anzalnaahu kitaabkii qur-aankii ayaan soo dejinnay fii leylatin habeen dhexdii ayaanu soo dejinnay, habeenkaasoo mubaarakatin la barakeeyey. innaa anagu kunnaa waxaanu ahaanay mundiriina kuwa digaya ayaanu ahaanay. fiiha leylada dhexdeeda yufraqu waxaa la kala saaraa, la kala xukmiyaa kullu amrin arrin dhammaantii, arrinkaasoo xakiimin ay muxkamin la sugay oo waxa weeye mid bedelmaya oo doorsoomaya aan ahayn. amran aamiriina kuwa amraya xaalo aanu nahayn ayaanu markaa aanu sugnay, aanu kala xukminay, amarkaasoo min cindina anaga xaggayga ka ahaaday. innaa anagu kunnaa waxaanu ahaanay mursiliina kuwa rususha markaa soo dira. waayahay raxmatan naxariis darteed ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu markaa sidaa u yeelay, naxariistaasoo min rabbika rabbiga xaggiisa ka ahaatay. innahu allah huwa isagu assamiicu waa midka maqalka badan oo alcaliimu cilmiga badan. allaha naxariista badan oo rabbi samaawaati samaawaadka rabbigooda iyo walardi allada rabbigooda iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa. in kuntum haddaad tihiin muuqiniina kuwa wax yaqiinanaya oo aaminaya laa ilaaha macbuud xaq lagu qaabudaayo xaqun mid jiro oo xaqa maaha ilaa huwa allah maahane. yuxyii allah waxbuu nooleeyaa, wayumiitu wuu dilaa. rabbukum huwa rabbukum allah waa rabbigiin iyo midkiidin abuuray. wa rabbu aabaa'ikum aabayaashin rabbigood wey, aabayaashin rabbigoodii wey, aabayaashin markaa al awaliina horreeyey. suuratu dukhaan waa suura makiya, waxay ku soo degtay markii nebigu maka joogay calayhi salaatu wasalaam. waxaa jira xadiis la sheego oo macnihiisu uu ahaa man qara'a xaamiim addukhaan fii leylatin asbaxa yastakfiru lahu 70,000 malak. qofka akhriya suuratu dukhaan habeenkii akhriya wuxuu waa beriisanayaa oo subaxdii uu waa beriisanayaa isagoo ilaahay ay dembidhaaf u weydiinayaan 70,000 oo malag. sidaa daraaddeed xadiiskaasi waa xadiis daciif oo munkarulxadiida, sida imaamu bukhaari markaa uu yidhi, wax ka jiraana markaa ma jiro. suuraddan allah wuxuu yihi xaamiim buu ku bilaabay, xa'da iyo miimka ilaahay baa waxuu uga jeeda garanaya. allah wuxuu walkitaabi almubiin, almubiintaas mucadaya laazim baa laga dhigi karaa, oo macnaheedu waa maxay? haddii mucaddo laga dhigo waa kitaabkii caddaynayay oo xaq iyo baadilka kala caddaynayay, xaqiibuu baadilka caddaynaya. amba almubiin waa kitaabkii caddaa oo wuxuu ka hadlayay aayaadkiisa ayaa cad. innaa anzalnaa allah wuxuu qur-aankaas waa qur-aankii anagaa soo dejinay fii leylatin habeen baa la soo dejiyey oo mubaarakatin barakaysan. waa laba qeyd, waa in habeen la soo dejiyey, habeenka haddana mubaarak uu yahay. leyladan iyo habeenkan muxuu ahaa? waa leylatulqadrigii. mubaarakadana waa maxay? maxaa iyada laga wadaa? waa habeen isaguna barakaysan oo leylatulqadri khayru min 1000 shahrin bay barakadaasi noqonaysa. leyladuna waa leylatulqadrigi. markaa labadaas sifo habeen ku mutaystay oo mudan oo ku sifaysan buu ilaahay soo dejiyey tabaaraka wa tacaala. sidaa daraaddeed ayaa allah wuxuu tilmaamay qur-aanka habeenka in la soo dejiye oo leylatulqadr uu yahay. markaa waxaa isweydiin mudan, habeenkan bishee buu ka tirsan yahay? ma muxaram baa? ma safar baa? ma dulqicda? ma dulxija? ma shacbaan baa? ma ramadaan baa? waa in la isweydiiye wey. haddaba bishaasi waxay noqonaysaa iyaduna ramadaan, oo qur-aankii ramadaan in la soo dejiyay noqonaysa. markaa in la soo dejiyey habeen leylatulqadri ah ilaahay baa qur-aan ku sheegay inna anzalnaahu fii leylati alqadr.
إن هذنا ليلة القدر قاس أي رمضان تهاي حا أيضا سي عدينيا وحسي عديني الله ويلي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان وبشي القرآن كل سودتي مركا بشي القرآن كل سودتي إني هبين كاس وكم من نقوني بشاس أي مركا لقى قادنيا وايه الله مركا وحول إنا كنا منذرين وحنا هاني كو ددك ودقيا ددك وحن برينا وحي أنفعيا يا وحي دبيا ولا كلا بريا سي إلهي حجديسو أي أضوامها مركا يوقمتو الله وحول فيها هبين كا دحديس أي يفرق لك لسارا من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة لوح المحفوظ كا أي إلهي تبارك وتعالى وحكسو قاضيا وحي سنة كاس أو دن دعيي أو سورة قليي deetana katabadii baa loo gacan gelinaya habeenkaas marka Ilaahay xukminaya sanadkaas soo socda waxa dhacay wax walba say noqonayaan qofkii dhimanaya midkii noolaanaya midkii dhalanaya midkii guursanaya midkii faqiiraya midkii xoolo yeelanaya midkii xanuunsanaya iyo midkii caafimaadaya intaba halka iyo habeenkaas Ilaahay xukminaya tabaaraka wa tacaala ajaali arzaaqi wax kasto marka ahaanay wasay ibn umar iyo mujaahid abi malik ad-dhahaki in badan oo salaf kamid marka laga wariyay marka fiiha يفرق كل أمر أرن كستو محكمة لا يتغير ولا يتبدل لا يبدل ولا يغير بدل بدليه ودور سومي ما ولا دورني ما بدي يسوي إسكي يسكو بدليه ما أو إسكي مركا ودور سومي الله وحده تبارك وتعالى أما وحى لوران كرا فيها يفرق كل أمر حكيم أرن كستو حكمة صاحبة وحكمة نوامحي ووضع شيء في محل شيء والمحل كيس إلا دقوي marka sidaana waa lagu macnayn karaa ama xakiim macna muhkam lagu macnayo amran arin darti ilaahay kala xukminayo wa maf'uul mutlaq maf'uul li ajlihi maf'uul bihi xaala inta wala yari karta amran in la aamiriina la yiraahdo amran maf'uul mutlaq dhigo arin darti ay ilaahay kala xukminayo min cindana naga xaqay kaat wa amr ilaahay u bixiyo tabaaraka wa tacaala ay xukunkaas uu kala dhacay habeenka in anagu kunna waxaan ahaanay مرسلين كوا رسولا مركا صادرا أي إلى الناس رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات ومحي ورسول بالله صادر يا دتك كدو الأخرية آياتك وعاد فإن الحاجة كانت ماسة إلي إن صادر نوح لو بهاي الله وحول مركا رحمة من ربك نحريس حق ربي كاهاتي درتي أي إلهي أرنت أوكل حكمنا تبارك وتعالى وايه إنه هو السميع العليم الله نحريس بدنا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وهديدتك أي فهميان ويقينيان وقلبك وذا كدع رعيس الله وحي لا إله إلا هو يحيي ويبيت ربكم ورب آبائكم الأولين وتوحيدك يا الله كرو حق لو عبدينا نجري يسوي وحد لي يسوي ونوليه يسوي مدك إذن مامله وإذن أبوري إنه يهي يولي بن آبياشي نمركا هرين هذا habeen ka in soo sheegnay ayaa culimada qaar waxay leeyihiin leeyladani la sheegaya waa leylatu nisfi min shacbaan oo bimaana leylatu qadriguba wuxuu dhacayaa shacbaan dhexdeeda sida daraaddeed shacbaan markay 15 tahay waa in la soo jeedo oo quraan la akhriyo oo la cibaadeysto wama ila dalik marka culimo badan oo uu kamid yahay ibn kathiir horeeyay rahimahullah ayaa wuxuu leeyahay waman qaala innaha laylatu nisf min shacbaan kama ruwiya an ikrima faqad ab'ada an-naj'ata qofka yiraahdo habeenkan la leeyahay waa laylatul qadri qofka ku tilmaama inay tahay shacbaan bartankeeda 5 marka qof ku tilmaama waa sida ikrima marka laga wariyay imaam tabari uu soo saarin sanad uu ku jira nadr ismaaciil al-bajri oo qawi walibana ahayne wuxuu faqad ab'ada an-naj'ata qofkaas arrinkaas waa arrin uu aad u fogeeyay oo aan xaqiiq markaa ku salaysanayn xaqiiqdan aad markaa uga fog waaya marka leeyladani leeylatul qadriga shacbaan ma ahe fa inna nass al-qur'aan annaha fi ramadaan quraanku wuxuu cadeeyay in ramadaan marka ay tahay quraanka saas laga qaadanaya waa leeylatul qadri quraanka uu soo degay haddana waa shahr ramadaan alladhi unzila fihi al-qur'aan leeylatul qadri in la soo dejiyo quraanka sheegay haddana quraanka bishuu soo degay waa kaas marka habeenkaas wuxuu noqon karaa ramadaan buu dhici karaa markaas saas uu quraanka marka looga qaadanaya oo si cad looga fahmaya markaas sidoo kale imaam shanqiidin uu leeyahay waa qowl baatil ba insaan la yiraahdo marka habeenkii in la yiraahdo waa leeyatu nisfi min shacbaan
baadil bay noqotay in baadilkii wax lagu sii diliso haddana la yidhahdo habeenka oo 15 Shacbaan hal cibaadaysto hal soo jeedo quraan hal akhriyo acmaal badan hal sameeyana iyaduna waa faasid kale oo waxay noqonaysaa ma buniya ala faasidin fa huwa faasid wixii lagu dul dhisay markaa fasaad oo asalkiisu uu xumaa isaguna faasid iyo wax xun oo meel gaadhin buu markaa u noqonaya Allah wuxuu dhibal iska daa hum ayagu في شك بكسوجي يلعبون حالي عياريان فرتقب سوق يوم مال تأتي أي الإيمان لا إيمان السماء صمدوا أي ليمن بالدخان قيقة صم بين عد قيقة صو يغشى الناس ذاتك مركع دبولية أو ضمان شينية هذا مقاسا وحا لغو ورنيا يضو لغو عقاب يلغو عذاب هذا مثل عذاب وعذاب كاسو أليم يمولي من شركة مركع حنوتية الله وحولي ربنا يا ربنا ربك يوم وحولون دونا قالوا اكشف نقفيد عنا نقا حق يقع العذاب عذابك نقفيد إنا نقو مؤمنون كوا إلهي رميسان أو إلهي رميني يانا هاي الله وحولي أنا سيدين أيا لهم يقو قصنا دي الذكرى وانسمد أي وانسمان والحال قد جاءهم وي من رسول كاسو مبين بيّن رسالة دي سوى عدها ثم انت أخذنا تولوا ويتيسدين عنه رسولك حقي سيكتيسدين وقالوا مركاسا وحي لادم معلم هو رسولكم معلم ومد وحلا صابري وحلا أصلا شاقوا حلوسوا أخري ومجنون وعلم الله وحولي إنا نقو كاشف العذاب عذابك وفيدي أيامنا قليلا أي زمنا قليلا وحير بانو قدر قادينا إنكم إذنكم عائدونك وكنا غني وكل عبنا يهلكني كسي ميسيا آياتهن بعد كشف العذاب الله وحولي واذكر حسن نبي الله يوم مال نبض سؤال قبنينه قال هذا البطسة الكبرى قبشدي وينيدا قبنينه إنا نقو منتقمون كوا كأرجو سنة يا أيامنا أيضا بل هم في شك يلعبون مكة لقى رهيبه لقبل أبا آيات التمناد إلى آيات اللي حتمناد لو تفسير أي مفسرين تكون فسران لو هذا تفسيرنا وحكوك لفسري إن مسعود رحمه الله إيو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما وأرضاهما هذين كهرين منك ابن مسعود رحمه الله سيدا ورينا يو مسروق لقوري وحيري وحانو قال لي مسجد كوفة كيالا عند أبواب كنت وعساوي حيري وحانو صاق لي ننقصانيا oo dad la joogay oo la fadhiyo marka uu sheekeynaya ninkaas wuxuu ka sheekeynay fasiriyay aayada oo fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhan mubin kadina wuxuu ku yiri atadruuna ma dhalika ad-dukhan dukhanka yaqiiqaas muxuu yahay ma garanaysaan marka wuxuu ku yiri dukhanka yaqiiqaas waa mid imanaya maalinka qiyaama dadka munaafiqiinta abu waxa way dhagaha ka galaya indhuhu ka galaya dadka muuminiinta ana iyaga wuu ku dhacayaa oo wuu asiibaya laakiin wax saameeyna ku yeelan maayo ilaa wax yar oo sida hargabkii duriga oo kala maahan marka wuxuu Mas'uud baa u nimi markaas radiyallahu anhu arinkii baan u sheegay ibn Mas'uud markii aan u sheegaynay wuu jiifay mudajic buu ahaa markii warkii aan u sheegnay intuu argagaxay ayuu fadhiistay وحولي إن الله عز وجل قال لنبيكم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إلهي النبي وحو كيري والله أمر إنه يراهضه وما أنا من المتكلفين كو إسكلفان وكممده والنبي مركز سؤال بدن يوح بدن لويديه قال له لي ما دان وحي أنو قرنين وإلهي أنو وشيغنو حرنشري أنو مد إسكلفان ميهي وحي إلهي ويشاقو يوحيدو ما دادك ugu jawaaba u sheega marka wuxuu yiri ibn Mas'uud radiyallahu anhu warda inna min al-ilmi an yaqula ar-rajulu lima la ya'lam Allahu a'lam wuxuu yiri cilmiga aqoonta waxa kamid ah qofku wixii aanu garanaynin inuu yiraahdo Ilaahay baa garanaya saw hadithukum an dhalik arrinkan ninkan aad iiga sheegteen oo qiiqa sida ku fasirayana warkiisa iyo xaqiiqada sida ay tahay aayada fasirkeedu weyn ka sheekeynaya buur wuxuu yiri aayada macnaheedu waa maxay markaas aayada macnaheedu qiiqa lagu fasiray oo lilay munaafiqiinta iyo indhaha ay dhaga ka galaya ma aha wuxuu yiri markii Quraysh islaamnimadii ay ka dimartay rasuulkiina ay diideen diinta ay qaadan weyneen
أي دعا عليهم بسنين كسنين يوسف. النبي عليه الصلاة والسلام وهباري وحكوها باري وحوي سنده النبي يوسف هبارتها صومري أو كلا إن يجرى يكون على غير قريشين فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميت كدنا وحا كل عيو أصيبي لبعض درن يقاتشو إلا الله فيه يوحوي بختي مركا عنين وهرجو كان مكان قالوا تورين تسوق قاتان أي وحوي يهدو سجيسي أي كريان أي سدا مركا يكون عنان كوجوس كوستان لا فيه مركا أي دب جليان وحوي دنان كاي وحي كسب بحياة دنان إيو أي مركا مركا كسم إستان وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء مركا السماء أي كرو في ريان وإيجانا فلا يرون إلا الدخان قيقهم بأركيان مركا وحصار وطير ويا كلكسوني مركا أي كر في ريان oo qof iyaga kamidihii waxa weeye oo rafaadka iyo gaajada iyo dhibaatada ku sugan uu kor fiiriyo fayara ma baynahu wa baynaha ka hay'ati dukhan min al-jahd samadii buu eegaya kadibna arladii ila waa abaar oo boorka iyo siigada wax saa u kacayay isagina waxa ma arkayo waxa weeye nafaqo darra ku dhacday indhiba ka soo dhacay markuu kor eego wuxuu buu arkayaa un qiiq wax u eeg laakiin qiiq xaqiiqa ma aha ee waa ka hay'ati dukhan min al-jahd dhibaatada iyo rafaadka ku dhacday iyo gaajada Ilaahay uu baday darteed ay sida u noqdeen marka rasuulkii baa loo yimid kaleey salaatu wasalaam waxa lagu yiri istasqillaha limudar fa innaha qad halakat dadkaad ka soo jeedood ka dhalatay nabi Allah Ilaahay u bari dad rafaasan oo waxa weeye gaajoonaya oo dhibaataysan oo abaar ay ku dhacday dad Ilaahay loogu yeero Ilaahay caabuda la yiraahdo ma aha bal horta marka koobaad Ilaahay u bari dhibaatada Ilaahay ka dul qaadan Ilaahay buu u bariyay kadina Ilaahay roob uu siiyay kadina waxa soo degtay inna kaashiful cadaab qalilan innakum aa'idun cadaabki wax yar baan idinka qaadayna laakiin haddana cadaabkaas leedku soo dejiyay marka la idinka qaaday kadib halkii waa ka sii bilaabaysa Ilaahay waa idinka qaaday cadaabki roob idin soo dejiyay waa idin nimcay idinku haddana halkii waa dhibaatadii iyo gaalnimadii iyo shirkigii iyo doodii ka sii wadaysaan kadibna إن مسعود حليه فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حاله تبتودي هذنا كل عبد هذنا إلهي بوحو سودتي يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وحو لتنوى يوم بدر بولي قبشنا لقبانا يأي أضق ويوم بدر مقاسا ابن مسعود حليه ابن كثير وتلماما يو وحو يلي شن أرمود وهرتوي تقين ويدام عدين وأدون كابالوا أركبا مدكو بدوا الدخان واقيقا هذا ينشاقنا أو غير قريشات بكو دعاي يي وقت النبي بكو دعاي من الروم بوها غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين يصوروا دعاي والقمر اقتربت الساعة وانشق القمر البطشة ويوم بدر واللزوم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما عذابك لازم كايسغنا دعاي وحول انت حسبوا دعدي بول وسيل laga wariyay in badan oo salafka kamid ah mujaahidi abi ali ibrahim an-nakha'i dhahak iyo adiyatu al-awfi ibn jarir marka uu sida uu doortay sidaas marka waayadkaas oo marka uu ku fasiray waaya marka waa sida marka laga wariyay usayd al-ghifari ayaa wuxuu leeyahay marka macnaha koobantina macnaha labaad gelin macnaha koobaad sidaas marka uu noqonaya qiiqan iyo waxa weey dadkii oo dhan waxa ay wada arkayaan oo gaaladii saameeyay oo oran Ilaahay cadaabka naga fayd oo kadina laga faydayo batsatal kubra in yoom badr lagu fasiray yoom badr 70 qof laga qafaashay 70 laga dilay oo rafaadkii iyagana ku dhacay in kitaabka siirada ee rawdada anwaarka ku soo marnay waxa soo dhanba waa wax cadaab adduun korkiisa ku dhacay sidaas uu inuu Sacuudi ku fasiray rahimahullah radiyallahu anhu warda waxa soo haray qowlki labaad baa soo haray qowlka labaad waa qowlki ibn Abbas oo macnihiisu waa maxay qiiq la arkay adduun korkiisa ku dhacay maahay wali muu imaninba bal huwa min amaaraati saaca qiyaamaha calaamadiisu uu kamid yahay oo muxuu daliishanayaan iyaguna waxay daliishanayaan xadiiska نبي عليه الصلاة والسلام أسيد الغفاري حذيفة ابن أسيد الغفاري وصو صاري أبي سريح
wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa noo yimi inuu soo dul istaagay annagoo markaa saacada ka sheekaysanay qiyaamaha nabigu wuxuu laa taquumu saacatu xataa taraw 10 aayaat saacadu dhici maysa ilaa 10 aayadood aragtaan waa qoraxda oo ka soo baxda maqribka dukhaanka daabada yaajuuj maajuuj soo baxa nabi ciise soo dega dajaal iyo saddex khusuuf waa khasf bil mashriq wa khasf bil maghrib wa khasf bi jazirati al arab khasfigu waa dhulku inuu go'o oo hoos u galo wanaaru takhruju min qa'ri adan tasuuqu naas iyo dab ka soo baxaya markaa magaalada cadan markaa bartameeda ka soo baxaya oo dadka markaa ka xaynaya waxa weeye tabiitu macahum haythu baatu dadku meesha istaagan bay leeyahay meesha ku soo urraamay ku soo iman wa taqiilu macahum haythu qaalu meesha seexdaana way seexan imaam muslim baa soo saaray marka sidaas markaa uu ku fasiray oo wuxuu leeyahay waxyaabahan wax dhacayba ma aha ibn Abbas uu leeyahay hatta ibn Abbas laga sheegay inuu yiri habeen sida warnay abi mulayka wuxuu leeyahay ibn Abbas baan ku kalahay kadibna markaan ku kalahay baa wuxuu igu yiri ibn Abbas xalay ma seexanin ilaa intii aan ka waabariisanay oo maxaa dhacay wuxuu yiri talaca al-kawkabu dhudharab waxa soo baxay xidig oo saan iyo daba u saaxiiba kadibna waxaan ka cabsaday inuu dukhaankaasi uu soo dhaco oo kadibna qiyaamihiiba uu sidaa ku dhaco kadibna hurda way ima weydiin markaa yiri markaas marka wuxuu leeyahay waxani iyagu xadiiska saxiixa daliishanaya waxyaabo dhacayba ma aha maxaa lagu fasirayaa markaa yawma taati samaa bi dukhanin mubin wa dukhaanka uu xadiisku sheegay waa qiyaamihi wa rabbana akshif 'an al-'adab inna mu'minuna wa sida buu ku fasiray ibn Abbas marka aakhira la tago aayad badan oo ay ku soo arooreen qaaladu marka ay leeyihiin walaw tara id waqifuu 'ala an-nar faqalu ya laytana nuraddu wa la nukadhibu bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin wa ayallah ulayhi kala way bal badalahum ma kanu yakhfuna min qablu wa law ruddu la'adu lima nuhu 'an ayat kaas la macna tahay waaya iyo sidoo kale walaw rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun hadii ilaahay u naxariisan lahaa oo waxa ku sugan dhibaatada uu ka dul qaadi lahaa wuxuu bay ku sii madax taagi lahaayeen oo ay ku sii sugnaan lahaayeen alxamdulillah waxay ku sii sugnaan lahaayeen tughyaanki iyo xadgudubkii gaalnimadii marka aayadkaas ayuu bay la macna tahay ayuu bay yiraahdeen aayadda markaas macnaheedu oo cadaab laga qaadayo oo adduunka intay joogan laga qaadayo mid jira markaa ma wuxuu buu noqonayaa oo la mid tahay aayadka kale quraanka markaa ku soo arooray faraha badan walaw ruddu la'adu limanuhu anhu iyo walaw rahimnahum aayadka markaa la midka aba waxa kale oo lagu fasiri karaaba oo muraadku noqonaya cadaabka in laga dib dhigo oo iyagoo mutaystay cadaabki in hadana loo kaadiyo waqti la siiyo iyaduna wuxuu bay kamid in loo naxariistay oo cadaabki laga dul qaaday iyo kashfiga cadaabka lagu dul qaaday qayb kamid ah marka ay noqonayso waa bacda inqaadi asbaabihi wa wusulihi ilaykum innakum aa'iduna wa antum mustamirrun saasun baa ku sii sugnaanaysaa hatta hadii marka qiyaamaha la gaari leeyay saamaxo leeyay si daayo hadana waxa weeye la'aadu limanuhu anhu bay marka iyaduna marka ay noqonayso iyo illa qawma yunus lamma aamanu kashafna anhum adab al-khizy fi al-hayat ad-dunya wa mata'nahum ila hin sidaas ku fasiray inna kashiful adab hadii la yiraahdo sidoo kale waa maxay yawma nabshul bast al-kubrana wixii waa qiyaamihi oo adduun iyo badr lagu fasiri maaye sidaas uu soo marka xaalkiisu marka uu noqonayo marka ibn Abbasna sidaas marka uu kaga jawaabay waxyaabaha uu sii daliishaday ibn Abbas waxa kamid ah oo leeyahay waxa uu sii daliilay oo cadeynaya in aan loo jeedin in qiiqan uu yahay qiiq adduun Allah wuxuu yiri bidukhanin mubin qiiq cad bayin waadih yarahu kullu ahad wa qiiq qof waliba marka uu arkayo marka halkana ibn Mas'ud wuxuu sheegay in qiiq aanu ahayn qiiq xaqiiqa laakiin mid ismoosiisa oo abaarta iyo nafaqa darrada ay ku dhacday indhahoodii ka dhashay iyagu ay u maleeyeen moodeen in markaa uu ahaa marka wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu yiri bidukhanin mubin yaghsha an-nas wa qiiq cad oo dadkii oo dhan maanshaynaya dadkii oo dhan buu daboolaya Soomaal garan marka wuxuu leeyahay taas cadeyn waxay u tahayba in wax weey qiyaamihii qiiqani marka uu yahay mid adduuna marka aanu ahayn waaya marka labada macno
ومن آخرين لقوة فسر آيات كان قيقا هدي نقطه عذابك اللي يكشف فيه هدي نقطه بطسة الكبرى هدي نقطه وحاسو رنبا وحوي إن قيام الله فسرين دونك الله فسر لبدا قول بمفسرين تمكايكو كلا فسران وياهي الله وحيري بل هم يقو في شك دحدي بيكسوغين يلعبون حالا عياريان فرتقي وسوق يوم ما تأتي أيمن سأسماء وسبض بدخان قيبة إلي من قيقا مبين عد قيقا يغشى الناس كدبولية مقاسا waxaa lagu oranayaa gaaladii iyagoo lagu cadaabayo oo qalbiga laga dilay intaan cadaabka la geeynin hada midkan cadaabun way cadaabkaas oo aliimun ay muulim ama waxa la oran karaa gaaladii waxay leeyihiin hada midkan markay arkaan qiiqi cadaabun waa cadaabkaas oo aliimun ay muulim Allah wuxuu yiri rabbana waxay oranayaan rabbigeegiyow ikshif naga faydo naga dulqaad cana anaga cadaabka in anagu mu'minuuna ku ilaahay rumeynayaan nahay Allah wuxuu yiri anna sideeba lahum iyagu usnaad dhikra waansan والحال قد جاءهم ويم رسول قاسم مبين بين رسالة دي سوي عدها ثم انت كدبنا تولى ويجستين عنه رسول كبي كجستين وقالوا waxay raadeen muallim huwa rasuulku muallim waa mid la soo baray oo wax loo soo sheegay wax loo soo yeediyay oo majnuun waalam in anagu ayu allah leeyahay kaashiful cadaabku wafiilay ayaanahay qaliilan ay zamanan qaliilan marka waqti yar innakum idinkuna عائدون كلابني آياتي مركز أي مستمرون في الطغيان halkii baa kasii wadaysaan وحتى آخر هذه النقطة دون نقطة على حسب تفسيرين الله وحول وذكر حسن نبي الله يوم مال نبضش وأن قوانينه البطسة قبشدي الكبرى وينيد إن أنا منتقمون كو أرجو سنة أنا هاي مركز الله وحول تبارك وتعالى ولقد حقيقة فتنا وان اختبارنا قبل هؤلاء المشركين قال ذن كهر قوم فرعون قوم كيسوان امتحان وجاءهم وحول من رسول كاسو كريم وناكسن أن أدوا قد إلي أنيق قد عباد الله إلهي أدومي سوليم إني أنو لكم إذيك رسول باني رسول كاسو أمين أي مأمون لآمنه الله وحول وألا تعالوا هاي اسكسر ريسيننا على الله إلهي اسكسر ريسيننا إني أنو آتيكم حيث ليمان يا بسلطان حجة أسوى مبين عد وإني أنو عدت وان مغنقليا بربي وربكم وإذنك ربيين أن ترجموني من أن ترجموني إن أدي رجمسان إلهي بان كم مغنقليا وإن لم تؤمنوا هدينا رمينين لي أنك أيضا رمينين فاعتزلوني قد إرادوا يقفقادوا يقتقعون فدعا ربي جيبوا بريو بأن هؤلاء كوان قوم إليهم بكبري قوم كاسو مجرمون الدنبيليالة الله وحولي فأسري لدى الماء بعبادي أدوما يغلى الماء ليلا هبين إنكم يجو متبعون كوالا راعيو للدبقلي ويه أو قوم كي فرعون يعيدن كي سبا الدبقلي هبين كي مركا اللبحة ولدى الماء واترك كتك البحر بدا رهوا مدقن وحزلون حالي تاي إنهم أيقوا جند وعيدا كاسو مغرقون لقرقين يقول ما شيني بيها لوها فينيو كم بدنا تركوا انتهي كتغين أما كم إن بدن بيتركوا كتغين من جنات جنوين يو عيون إلو بيوه برقنيا وزروع يبير يدرك ومقام يقريو وكريم وناكس ونعمة الراحيس بيكتغين وكانوا أي حيان فاكهين كوا كبر واقص وكل راحيستان فيها مذكورات يحيابها لصور شيئا الله وحولي كذلك الأمر عنهم كذلك سأل صور شيئا وأورثناها نمعوين كالله صور شيئا وحان دحل سيني قوم كاسو آخرين كالي فما بكت ميئوين عليهم كوا لهلاقي وقوم فرعون السماء سمدي أميئوين والأرض الذين أميئوين وما كانوا مني أهان منظرين كوا لو كادي أو لو سقو وقت لسيو الله يحيي ولقد نجينا والله يوان بدبادني بني إسرائيل غير بني إسرائيل من العذاب عذابك وان كبدبادني عذابك المهيني وحد الليني وصرفت ذلك قادين من فرعون من كبدبادني وايه إنه فرعون كان وحو هذا عاليا من السريسية وصرية من المسرفين عالي من المسرفين كو حد قدبي مركا كميدا ولقد اخترناه وانو دورني على علم أيانو كدورني حالا
كدهناه على العالمين عالمين أنت يجا وقت جود شوكتي يجا كسر حد بانو كدارنا واتيناهم وانسين من الآيات آيات كحق جودا ما شيء بانسين فيه دحيس أو كسر نادي بلاء النعمة على صوم مبين عد أما ما شيء أيام سين فيه دحيس أو كسر نادي بلاء امتحان كصوم مبين عد الله كان حكوت المامي إنه اختبارين مسلكين تنكهر قوم كيف فرعون قبضي انتي مركا مصر وحولي لا وحنا امتحان يجا كهر قوم فرعون ولمنا وحا ويمي رسول وناكسن وجاءهم رسول كريم رسول والنبي موسى عليه السلام وعلى نبينا صلاة والسلام وكليم الله رسول وناكسن بانو أها محوليمي أن أدو أي بأن أدو قد إلي أنك يقت عباد الله إلهي أدو ميس ومعنى يدو أي تعي فرعون يعيدن كيسو أدومهان أدقو ميسان يسان الهيستان أنك يقسو وريتيا إلهي بان كحرية تبارك وتعالى oo adoonnimada idinku aad ku haysaan oo idinka idinku hoosnool yihiin tan ka saaro ayaan ilaahay ku xidhayaa oo ilaahay ay ku xidhmayaan tabaaraka wa tacaala marka aanadu bi aanadu guta oo macna ii dhiiba weey ilaahay aniga cibaadallah ilaahay adoomiis aniga ii dhiiba tafsiir labaad baa jiro in la yiraahdo an adu guta ilaahay aniga ii guta at-taa'ata taa'ada وأنا جاي أطيع ومقلع الراعة واحد يشيء يقاطع عباد الله يا عباد الله إلهي أدومه سيو تفسير كاسنو وجرا إني أنا أقوم حايل لكم إذن رسول بانه رسول كاسو أمين وأمين لآمن رسول لآمن إذن كالدين صدري بانه ولا تعلوا على الله إلهينا هيسكر سريسين تبارك وتعالى لا تستكبروا عن اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه إلهي آيات كيسين رعلان سككبرسينين حجوين كيسة إن هذا قاستان إن الرميسان براهين تيسا إن تصل بها يسكت كبريننا إني أنا وآتيكم حين إليهم بسلطان حجو سلطان كأي حجة صم بين عض وظاهرة أو عض واضحة وحلي وإني أنا عدت وأن مجلي بربي وربكم بدين ربي جينا وحكم قال أن ترجموني من أن ترجموني إن هذا رجمسان رجم جن مركب حنا قنايا رجم جني سيدا وكفى سري ابن عباس يا أبو صالح والرجم باللسان والله ور معناه بيكو الرجم باللسان وهو الشتم وين لعاية وحلقة شيء للدعاية ديو بروباغندا marka laga faafiyo waana mid ay tahay la maxaalata qof kasta oo daaciyo oo nadiir ah oo ilaahay sharcigiisa ku baaqaya inuu marayo sidoo kale waa mar kale uu nabi Muuse suuratu Ghaafir ku soo artay inuu leeyahay وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وحن إلهي كما قال يا أبو ليه أو ربي جينا متكستو إسكبرين بدن ومالك حسابتي قيامها أنا مركع عن رومين مركع سيدة كلية ولا جابت بادي قراءة تدك فافين يا مركع دعاية أو تدك وحكي شيء أو قفك لا يا أبو اسكت دعوة يدين وفافين يا دعاية وسماينيا si looga tago oo looga yaaco waxba aan looga dhageysan oo suuq xumaan lagu geliyo wax weey waa shayga koobaad ee isticmaalaan wuxuu maana laga badbaadi karaa in ilaahay la bariyo tabaaraka wa tacaala waa sida qataada uu yiri waa macnaha labaad isaguna wuxuu noqonayaa arrajmu bil hijaara in gacan loola tago ambiyadii ama dadkii ducaadaha marka gacan loola tago la dhibaateeyo dhagax iyo wax weey dhibaato loo geysto marka macnaheedu waa maxay a'uudu billah الذي خلقني وخلقكم الله إذنك يا أنا جبيد عبوري وحن كم قليا من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل إن إلى سوء قادان حمان قول فعل كيدون طبعا نقطه الله وحي تبارك وتعالى وحي مركا النبي موسى وإن لم تؤمنوا لي هدي أنا أيضا الرومين وإيمانك قادم وإذانا فاعتزلوني قد يرادوا مركا إداية فلا تتعرضوا لي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا إنك لداية وإنك لكحي وإنك لبدبادية وأنك هاي صوبان بحين وهاي إيماننا وحي فدعا ربه ربي يجيب مركا بري مركو حالكو برتا مري وحي كبري أن هؤلاء بأن هؤلاء كوني قوم إن قوم كاسو مجرمون الدنبيريال أو سيدا أن كوشو جيني إن دباتيان وحوق يستان مركا اسكودي مركا قصة النبي موسى عليه السلام يدحمرت فرعون يعيد كيسي دور ميراد القرآن كم يدكو سعرات سورة الشعراء وقلت قدونه
iyo suuratul acraaf iyo suuradan hadda aan joognaba iyo suurado kaleba suuratu Ghaafir aan ku arki doono allah wuxuu amray markii nebigu muuse uu soo cawday xaaladdu halkii ugu dambeysay ay gaadhay ayuu ilaahay wuxuu amray inuu baxo markaas oo dadkaas isaga rumeeyay uu la baxo min bayni adhurihim min ghayri amri fir'auna wa mushawaratihi wa isti'daani isagoo waxba la tashan fir'aun waxba weydiin amarkiisa aan waxba ka sugin waa inuu la baxo halka markaa uu la maro markaas ilaahay wuxuu leeyahay faasri bi'ibadi adoomahayga la dheelmo leelan habeen maxaa yeelay innakum muttabacuuna waa kuwa la raacayo la dabagaliyo la raadinayo marka la baxday waa la soo eriyay waa la soo raadinay la bax buu ku yiri markaas watruki al-bahra rahwa badana ka tag iyadoo marka xasiloon oo degan oo Allah tabaaraka wa ta'ala nabi Muuse markii uu ka talaabay isagii reer bani Israa'iil badii ayaa ilaahay waa kii amray in badda marka uu ku dhufto marka ush oo 12 jeer uu ku dhufto maadaama 12 qabiil ahaayeen 12 jeer markii badda ku dhufteen ay soo dul istaageen badii gabigeed meel walba lagu dhuftaa waday noqotay oo biyihii biyad taagtaagan oo baraf oo kala oo dhaqaaqaynin bay noqotay wadooyin baa ka dhex samaysay iyo wadooyinkii bay u qayb sameeyeen marka ay dhex mareen markii ay socdeen oo ay ka sii baxayeen baa waxay arkeen gadaashooda markii soo eegeen in fir'aun iyo ciidankiisa ay soo galeen badii markaas nabi Muuse wuxuu yiri calayhi salaam sidii uu muuqatay oo marka uu soo baxday inuu hadana u shii ku celiyo biyihii ay soo noqdaan oo iyagu biyaha ay ku qarqoomaan oo sida marka ay ku dhintaan markaas Allah wuxuu leeyahay watrukil bahra rahwan badda iska daa oo waxaad ku dhaaftaa sideeda ay u xasiloontahay adigu ha taaban adigu ka bax maxaa yeelay haduu ka soo qaadba uu shii ku dhufto oo biyihii dib ay u soo noqdaan ciidankan ka dambeeya qayb kamid ah soo gashay qaybna wali ma soo gelin qaybtii aan soo gelin markaas sidaas ku badbaadaysa markaas laakiin hadii uu iska daayo waa sida ilaahay ugu tala galay oo isagu uu ka baxo marka iyagu ay ka dhamaadaan kuwa qolada ugu horeeya ay wali aanay ka bixin kuwoodii u dambeeyna ay soo wada galaan oo badii ay ku dhex sugan yihiin markaas uu sidoo ilaahay ugu tala galay biyaha ilaahay isugu dhuftay tabaaraka wa ta'ala oo biyihii sidii marka ay ku socdeen markii nabi Muuse uu isku dayay أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان إلهي وحلي وترك البحر رهوا بدأ أدو حتى من وحبا كله فن اسكرافوا أدو كبحوا محايا إنهم يجوا جند وعيدا عيدا خاصة مغرقون لقرقين يولا مانشين وبيها مركا لغوهم فين إلهي مركا وحلي سوقي تبارك وتعالى إن وحويه أي كود وجوه ريانا أي صو ولا جران أو أنا يعني كبحين أو أيودا وهذا إني كبحان كودي دمنا أي صور دم بيسترمان أي صو ولا جران كدنا مركا هالمر إلهي سيدا وكوها لاقى تبارك وتعالى وأنا سيدي مركا دعضي مركا إلهي وحى أن يتركه على حاله ساكنا وبشره بأنهم جند مغرقون مركا وح مركو سيدا وكوها مني نموسي ومركي وحوي أي كوهميين أي لهدين أنا قوم مركا اللي سوقاري إنا لمدركون كوا الله صاح عليه ولا قبتبان عبصدين با أي يسكدي لكن إلهي تبارك وتعالى دتشي حلكي كما دمبيست هانا مركا كوبت بادي الله وحده تبارك وتعالى كم بدنا تركوا انت كتغيروا من جنات جنوين وعيون إله وزروع باره يدلقيو ومقام قريو مقام وحوي المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة وما لها وحوي قروح بدن أو قريها أو للدقو وكريم وناكس ونعمة راحيس أو كانوا هايان فاكين وكن معيزة فيها أماكن تأيو نمعين كالا صور شاقين وايه الأمر كذلك أرنك واسعين صور شاقين وورثناها وان دحشيني نمعين كالا قسو شيكي قوم خاصو آخرين كان والله لو صورات بكسو أرورتي سورة الشعراء سورة العراف وحدي كذلك وورثناها بني إسرائيل تذكر دحشي تذكر كلا إن معين كلا دحشي وامحي وارهل بني إسرائيل افتقودي كود للضعيف سنيوي الله مركل وحي وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها نمعين كان وحن دحن سيلي تذكر كودي لقود ضعيف سني مركا مشارق الأرض ومغاربها الله وحي فان بكت مئوين عليهم كواس لها لاقي السماء السمدي والأرض على وما كانوا منيعها منظرين كوا لوك هادين مركا حديث واحد رسول عراري أو ليه معنيش وحوي متشر أضون إلا السماء وحكوا لي لباء الباب باب كم إذا واحد كصوب حريز قيس الباب كم إذا أنا واحد كجلا عمل كيس هذا الكيس هدي ودنتو فقداه وبكى عليه لبدي البابوي واي يا نوي أوير مركا حديث كاسي
وحديث ضعيف ولمن مرك قانا وابل وريابه isagoo mawquuf ku ah oo mawquufun ka marka Anas bin Malik radiyallahu anhu warda marka dadku marka ay dhintaan xaqiiqadu waxay noqonaysaa in dadku ay noqonayaan imma mustarihun aw mustarahun mid laga raaxaystay mid loo waxway loo raaxaysto oo qofna waa laga nasanaya qofna waxway waa loo darsanaya qof loo baahan yahay oo khayr badan oo wanaagsan buu ahaa qofna waa laga raaxaysanaya dhibkiisa iyo balaayadiisi ayuu adduunka marka uu kala tagayo marka uu dhaafaya ayada marka macnaheedu xadiiskaas waxba kama jiray macnaheedu waa maxay ay lam yakunu amalu ala al-ard amalan salihan yabki alayh kuwa adduunka arladan korkeedu ku cibaadeysto amal saalix ku dul sameeyay ma ah walam yas'ad lahum ila as-samaa'i min kalaamihim wala min amalihim kalaam tayyib wax wanaagsan ay sameeyeen amal wanaagsan oo sidan soo aroortay kor aada oo amalkaas oo kor aadana iyadana markaa ma jirto sidaas markaa macnuhu uu noqonayaa Allah wuxuu tabaaraka wa ta'ala walaqad najayna wa badbaadni bani israa'iil reer bani israa'iil min al-'adab ka su'aal muhiini ihana iyo sharafta ka qaadan ka badbaadni min fir'auna man ka badbaadni innahu fir'aun kaana wuxuu ahaa caaliya mid sareeya oo min al-musrifiina caaligaas min al-musrifiina kuwa xad gudub markaa kamid ah walaqad ikhtarnaahum waan dooranay reer bani israa'iil marka ikhtiyaarkaasina culimada qaar baa waxay yiraahdeen waa sababta uu ilaahay uga soo saaray anbiyo badan bimaana doorashadan waa inuu ilaahay anbiyo badan ka soo saaray ee doorasho kale iyaga daatadooda iyo dadnimadooda iyo yahuudnimadooda iyo saa'ilnimadooda la jecel yahay markaa ma ah marka waaniga horena u soo marnay fadalnaahum ala caalamiinta wa caalami zamanihim waa dadkii waqtigooda la noolaa oo markaa la joogay marka in sidoo loo jecel yahay maahe culimada qaar baa wale waa anbiyadaas ilaahay anbiyada ugu badan iyaga ka soo baxeen anbiyada ugu badan oo ka soo baxay baabal doorashadu ay tahay ee wax kala ma waaya horena waxaan soo marnay ummadda inaan ka fadli badnayn ee marka iyagu ummadan ay ka fadli badan tahay ee iyagu waqtiga la joogeen haday cid ka fadli badan yihiin ay marka ka fadli badnaanayaan waatinaahum waasina min al-ayati ayatka xaqooda ma shay fihi ku sugan yahay balaa nicmo oo mubiin cad nicmadaas maxay noqon kartaa oo waxyaabihi ilaahay u soo dejinayo min al-manni was-salwa nicmooyinkii oo manniga iyo salwaha iyo shimbiraha iyo malabku marka uu kamid yahay weyn hadii ikhtibaar la yiraahdana wala wala ikhtibaarina wa ikhtibaarun zaahirun jaliyun liman ihtada bihi way wa aayaadkii la siiyay ikhtibaar badan baa ku sugan waxyaabo badan oo lagu imtixaamayo ayaa ugu badan oo ku jiray oo ay kamid tahay in diintan loo soo dejiyay inay qaataan ay ku dhaqmaan oo kaliya midaas aaba imtixaan ugu filanba Allah wuxuu yiri jalla wa ala in haula yakuna la yaquluna waxa oranayaan in hiya caaqibada iyo arrinku halku ku dhamaanaya ma aha illa mawtatuna dhimashadeeda ma ahana dhimashada al-ula horeys wama nahnu anaguna manihin bimunshariina kuwa marka la soo saaray Allah wuxuu yiri waxay yiraahdeen fa'tu laka alaya bi aabaa'ina aabayaashayo in kuntum hadatin saadiqina kuwa run sheegaya Allah wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala ahum ayaga ayaa khayr badan am qawmu tub'in masatub'a qawmkiis ba khayr badan iyo waladiina kuwii min qablihim tub'a kasii horeeyay ahlaknaahum dhamaantood waa halaagna maxaa yeelay innahum ayagu kaanu waxaan mujrimiina kuwa dambiilayaala qaaladii ba waxay leeyihiin in hiya ay mal caaqibatu wa nihayatu al-amr caaqibada iyo arrinku meesha uu ku dhamaanayo u dambaysaa may ahaanin illa mawtatuna al-ula waxay leeyihiin annaga marka aanu dhimano halkaas ma caaqibadeedu markay ahaat meesha aan ku soo afmeermayno aan ku soo gabagaboomayno waa maxay waa inaanu dhimano hal mar waa inaan dhimano ma fahant laakiin ma jirto waan dhintay haddana waa la soo saaro waa noolaanaya maya arrinka iyagu iyo meesha u dambeysay ciribteedu ay noqonaysaa arrinka iyaguna uu ku soo dhamaanaya waa mawtatuna al-ula waa in naftu ay naga baxdo dhimano lana aaso bas wama nahnu mananihin bimunshariina kuwa la soo bixinayo waxay yiraahdeen hadii la soo bixinayana fa'tu bi aabaa'ina in kuntum saadiqiin aabayaashayadii nagu horeeyay miyaa soo saartaan oo hadda keentaan iyagoo nool hadda run sheegaysan sidaasay ku doodeen Allah wuxuu yiri ahum khayrun am qawmu tub'a ma iyaga khayr badan mise ninkii tub'a loo oran jiray iyaga ka horeeyay qoomkiisa waa ka talo khayr badan oo tub'aas wuxuu ahaa nin la sheego inuu qaxtaan ka soo jeeday oo reer Yamaneed ahaa in boqor uu ahaa ninkaas waxa la sheegay
وابن كثير وتلمام يا نقالوا أها كذا نو إسلام دين النبي موسى عليه السلام بمكاقات ولمن ضد أحبار اليهود هو علماءها ودينتها التوراة يقاني أيا وقت جوداس وصوب نقدر كسو إسلام كدي من حقه وراعي نبي عيسى بن الله سو صار إلا مركا ودول بدنا أمريو كعبة يحرم هل كان مركا وسي مرين هذا بقى نينكاس ولو يقاني تبع الأوسط ونين مركا ساكو إسلامي أيا وحوها ننتلكي أي بينيين كسور تستين بوها النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عباس لقوري وحوري لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم نينكا عين وحكشي نينكا سو إسلام وحديث حسن مكا شواهد اللي سوقي سيدا وكلا مركا النبي وحور ما أدري تبع النبي كان أم غير النبي من نبي وها مسم نبي مو أهين لبدا سانا كلا سارين وأنا كلا قريني النبي عليه الصلاة والسلام مركا نينكا قوم كيسي أو بيني أو يقرأ لها لاقي ميا خير بدن مسكوا النبي هد بيني يا خير بدن يا والذين من قبل كيكو الريب أو تبع حتى كوكسي الريو لها لاقي بتشري مركا تبع قوم كيسان لها لاقي يكوي كسي الريو لها لاقي يكون هذا شوي يا خير بدن أهلكناهم لما تنبوا لها لاقي إنهم كانوا مجرمين ما دام يددن بيريال مركا هاي مركا تبع وحلا شيء qoladaas oo yamaamada ahlu yamaama reer saba markas ninka soo boqora oo meligu noqdo tubac baa lagu magacaaba sida kisra loogu magacaabo ninka soo boqor u noqdo reer furs qolada farisiinta sida qaysar loogu magacaabo mid kasta oo boqor u noqdo reer room iyo roomaanka fircoon waxa lagu magacaabo mid kasta oo masar milkiyo boqor ka sheegta najaashi sidoo kale loogu magacaabo mid kasta oo marka ardul xabasha ka noqdo marka maxay boqor marka ka noqdo الله وحده ما خلقنا السماوات والأرض سمويك الله ما أبور يوم بينهما واحد وحيا لاعبين مركا كوع عيار يحال لاعبين كوع عيار مركا نجوا ما أبور نجوا مركا سكع عيارين ما خلقناهما سمويك الله ما أبور إلا بالحق حق مركو أبوني عدالة يس وحويسوناش ولكن لون قوي أكثرهم بدو كود لا يعلمون ما قريان إن يوم الفصل كلا ساردنا ما نكيد ميقاتهم ومدود وقت قدر لو تلقى أجمعين لما أنتم يوم مال أي مدود يختود وياه لا يغني عنه كده يقين مولى من مكان داره وقرابه عن مولى مد كلا مولى حقي سو قرابه كلا عن شيء وحبنا عنه كترين ولا هم نني أهاني ينصرون كل لو جرجاري ومركا لو هيلينيو إلا من بدون بلو جرجاري رحم الله الله ونحريست إنه الله هو الله العزيز ومتك غالب كأرحم نحريست بدن الله وحيني سو كورهم يا عدالتيس هي النفتيس هي ذاتيس إنه كدرتها يكون فنتها عيار يدلدل هي باطل وحي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا إن سمدي الله أبو عيار والظن يملها كوا قالوا بي مليسنيا لكن إلهي وحليه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين أنا وعسك عيارنا وما أبو سمدي الذي وحول حياة حكمت بكوجرت ما خلقناهما إلا بالحق حق يحقق النمو يا عدالة يقرشي حكمة بالله وتعالى قالوا أبور ولكن أكثرهم ذكبذكوا لا يعلمون ما قرنيا الله وحول إن يوم الفصل ميقاته ما لك كلا صاركوا قيامها أيام ميقاته مددوا دي وقت جود يمد حلوت كل حلي مركا وهذا أجمعين دمانتو يوم مال أيام ميقات كود وقت جود وهذا لا يغني آن كترين مولى المد قرابه عن مولى مد كلا قرابه حقيس مولوه معاني بدن بالله استعماله إن أدير قرابة الله استعماله إن أدير والله استعماله من قرابة كلها والله استعماله ناصر يمدكوك قال والله استعماله الضنك حتى والله استعماله مركا لا يغني كتر ما يوم مولى من موليه يقرابه عن مولى من كلا قرابة حق الشيء أو محمد ولا هم من أهان ينصرون كله هيني يلوج الجاري إلا من بدن بالوج الجاري رحم الله إلهي ونحريستي إنه الله هو العزيز ومن مكا غالب ورحم نحريس بدن إن شجرة الزقوم كيد كزقوم كأن زقوم كجيت لا يقان طعام الأثيم ميدك الدم بدن طعام كيسوي طعام كاسوك المهلي نحاسته أو كلا أما جفر كيس ريد صهر لا أو كلا ويا طعام كاسو يغلي كركرين يده في البطون علاش دحديده
غاليا كركريس oo ka qaliil xamiimi biyaha kulul karkaridooda oo kala biyaha kulul say isu laba rogaan ay u karkaraan oo kala u karkari markaas malaa'igtu waxay leeyihiin khuduhu qabta oo fa'tiluhu jiida ila sawaa'il jahiim bartamaheeda u jiida thumma inta kadibna subu kushuba fawqa ra'sihi madaxiisa dushiisa min cadaabil xamiim kuleelka cadaabkiisa xaqiisa wax kaga shuba biyaha kulul cadaabkooda xaqooda wax kaga shuba waxa lagu oranayaa midka asiimka dambiga badan duqda dhami innaka adigu al-aziizu mi sharaf badan oo al-kariim wanaagsan baa tahay إن هذا كاسم ما مثل وين كنتم أهدان تمترون كوكشك سنبه معه الله كم حكوا من شجرة الزقوم شجرة الزقوم مركز قرآن كما يلك الدوان دور جيدو كل الدوان أو نارتي عذاب كلا كل شيء جانا ونصامرنا وح لفهم كرا ولا تلمام كرا ولا صورة سنكر معه محايا لميش كويا لا بواقع جهنم وجهنم النار تاس يوحوي سعير هذا يجحيم هذا نحدود كويا له مركز شيء هلك كويا لنا cid ka warrami kartaa ma jirto laakiin geed naareed oo Ilaahay uu ku ciqaabayo dadka isaga ku caasiyo gaalada inuu yahay uun ba markaa la fahmaya طعام الأثيم midka damiga badan cuntadiisa weey oo la siinayo fi qawlihi wa fi'lihi waana de kaafirkiya gaalka in badan culimada kamida waxay sheegeen inuu Abu Jahl uu yahay wala shakka fi dukhulihi fi hadhihi al-aaya walakin laysat khaasatan bihi marka inuu soo guda galayo oo طعام الأثيمka uu dambi badanaha uu ku jiro Abu Jahl shaki kuma jiro laakiin isaga gaar kuma aha Abu Jahl ee qof kasta oo sifada ku sifaysnaada ayaa markaas soo guda galaya markaas Allah wuxuu yiri kal muhli kufar oo kale weey geedkaas markaas waa saliid markaas soo hadho huubadan iyo waxan madow oo kale weey طعامkaas oo yaqli isku laba rogayo ku karkaraya في البطون علوش دحديد غاليا كركريسي سلب رغيد او كقليل حميم بيها كل markaas laba rogoodo kala buu isku rogaya marka ama nuxaasku macnaa marka muhliga ama baqaa zaydka saliid marka la shubo waxaan soo hadhay ee madow ee marka gadaal ugu dambeeya hal ugu fasiro waxay malaa'iktu kooranaysaa khuduhu qabto oo fa'tiluhu jiida fa'tiluhuna waa qiraa'o kale ila sawaa'il jahiim marka bartamaheeda ثم انت كدنا سبوا كشوا فوق رأس مدحيس دوشيس من عذاب الحميم حميم كعذابكيس حقيس بياكل عذابكooda xaqooda wax kaga shubo oo ku ciqaabo kaasa waxa lagu oranayaa midka athimka duqda dhami innaka adigu al-aziiz mi sharaf badan oo al-kariim wanaagsan baa tahay waa ala wajhi tahakkum wa tawbiikh waa iyadoo lagu diganayo oo la ciqaabayo oo la canaananayo qalbiga laga diliyo marka weey ee macnaheedu maaha inuu wanaagsan yahay waa qof isagoo xumaan ku sugan oo la ciqaabayo hadan leemid wanaagsan oo kariim oo sharaf badan baa tahay maadaama Ilaahay caasiday bal hadda waa kana ka sheekeen oo ka warrama marka la leeyahay marka dhami Allah wuxuu leeyahay hada kaas ma midkii way kuntum haydan bihi isaga tamtaruuna kuwa marka ka sheekay waa cadaabka ka sheekay kaniisay waa kan baa la leeyahay markaas afasihrun hada am antum la tubsirun baa la leeyahay sixir baa waa kana ma inda sarcaad waa mase xaqiiqo الله وحول إن المتقين كوا الله كعبس في مقام قريء كسوجيهن مسكن وأمين آمنة في جنات الجنوب بكسوجين وعيون إله يلبسون حالا يحرنيان من سندس حررة ناعم كايوتش العسن حق إذا حرنيان ويستبرقني حررة مدة إذا عدك متقابلن كويس وقابل حاليهن كذلك الأمر عنهم كذلك سال صوت شيء قوي وزوجناهم ونقولن بحور قبله عض أو عين وحوي إن دواوين أما وزوجناهم وحنقول بحور من حارة لقى كينايو قبل مركا كوريريو قرح دودا الله أشقرارته الله يابته مركا هذا أرقته أو عين إن دواوين يدعون حارة أي ويرانيان فيها جنة دحية بكل فاكهة خضار دمانتين آمنين كو آمن حاليهين أو كآمن عن انقطاع الثمرة ثمرة دي فواكه دين كقعضو لا يذوقون مرة من أيام فيها جنة دحية الموت دمشق إلا الموتة الأولى أي بعد الموتة الأولى لما شظهر كذب مد كلاير دمنا يعني أركيان مجرتم ووقاهم إلهي وكيلالي عذاب الجحيم عذاب كذا وكيلالي فضلا لأجل فضل وإرادتي ومن ربك حق ربك هذا ذلك إن إلهي وعذابك كإلهي جنان وقرينا هو الفوز والليبان وعلى عظيم وين الله يحل فإنما يسرناه وانفذنا القرآن بلسانك اللغة عربية وكفذنا لعلهم يتذكرون لكي يتذكر سيوان سبان فارتقب سوق إنهم يجوا مرتقبون كوسوق يوين الله تبارك وتعالى markii uu ka soo sheekay dadkii ashqiyadaha xaalkooda ayaa halka wuxuu kaga hadlayaa ku cadfay bidikri xaalis su'ada dadkii su'aadada hay liibaanay guuleystay
حال كود الله إنه هذا تبارك وتعالى. ولهذا سمي القرآن مثاني. القرآن كوحد مثانية لو معاوي مثانية مركو الله ليه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. والقرآن مركا وحوي مركو كور رمه وناك حمانتي صفات حنشيقي قرآن مركا وضدك وناكسن كور رمه ضدك وناكسن شيقي. والقرآن مركا وكور رمه عذابك وحوي ضدك متقين كأي جندي النعيمتي يوحوي وناك يورنك شيكيني وي الله مركا وحو كهذا ذكي سعادة هي وحولنا المتقين في مقام أمين وحي كسوجيهن وحوي قريو وآمن أهبي كسوجيهن محي آمن كيهن قد أمنوا فيها من الموت والخروج إن يكبحان نمعدن أيويان أم بين الإنتهام بآمن كيهن ومن كل هم وحزن وجزع ونصتعب ونصب سيدو كلام مرغو يولول يوربهار يرجح يدال يدباتنا يغنو آمن بكيه. ومن الشيطان وكيده شيطان يشرقول كيسنا آمن بكيه وسائر الآفات والمصائب مصيبين كلي آفات كلا سوحر نساسو كلا آمن بكيه. في جنات وعيون جنوين إله برقانية وبرواقابي كسوية يلبسون حالة حرانيا من سندس حررتك الإسن حق إذا وحكا حرانيا ويستبرق المدة أضك حق إذا وحبك حرانيا والله وضع حريرة عن مدة الإسن مدة كلامة كي أي دونان بحرانيا وعكا الله لغوفة سرعيبا سندسك يا حريرة الناعم تانا هوس بحكسيسين يعني ورركا هوسي مدة استبرقايو أضقنا إيضانا كوربي كحرانيا oo mid sarreynaysa noqonaysa mutaqaabilina kuway soo qaabilay oo wax weeye qalban wa qaaliban iswaafaqsan sida ay isaga soo horjeedaan isku soo qaabilsan yihiin ba qalbigooduna isu waafaqsan yahay ay iskaga soo horjeedaan waana sida laga yaabo inay khilaafsan yihiin dad badan oo kamid ah dadka ahlul adduunyada jooga dadka iyagoo muuminiin adduunyada jooga ba laga yaabaa inuu shaydaan ka dhex shaqeeyay oo balaayay cadaawad iyo baqdaa iyo xiqd u dhex yaal markaas laga yaabo iyagoo isu qasqaslayo is salaamaya qalbigooda hadana inaanu isu soo jeedin ma dhici karta ahlul jannuhu sama qalban wa qaaliban kuwa iska soo horjeeda is waafaqsan alamru kadalika arinku waa sidaas wazawajnaahum waanu guurinay bixuurin gabdha cadcad waa lagu fasiri karaa ama bixuurin gabdho qurux badan oo markaad aragto Allah shaqaraarayso quruxdooda ay ku wareerinaysa oo ciin markaa in dhawaaweyn yadcuuna xaalay u yeeranayaan fiha jannada dhexdeeda bikulli faakahatin faakaha dhamaanteed aaminiin kuwa aamin xaalayihiin oo in midhahaas ay ka go'aan oo ay ka istaagaan ama waqtigoodii la yiraahdo waqtigii midhaha lama joogo oo muddo kadib imanayaan waqtigoodii wali may gaadhin taana aamin bakay la yaduquna fiha al-maut illa al-mautata al-ula dhimashana meesha ma ku arkayaan illa dhimashadii hore ay u soo dhinteenun qabla al-ba'th wa an-nushur ma ahay وقاهم إلهي وكيل عذاب الجحيم حديث مركز صحيحها نبي وكيلها يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار إلهي تبارك وتعالى موت كيبو كينيا سوى لو سوى إيكيسي سيدي وحوي الناف مركا أملح مركا سوى حل دح استاجني النار الجنة دح ديدا سوى حل يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت حديثك صحيح عوت المامية مركا لصو صورة أو كبش قال لصو صورة أي الجنة دح يا النار دح ديدا استاجن كاسا أهل الجنة هي الله اللي يليه أهل الجنة كوار جنة ضمن ود من ميسان أهل النار كنا أساسا كلا وحلي خلود فلا موت كوار نار تاس لما شدن بود من إنسان مركا مجد الله وحده تبارك وتعالى فضل من ربك أرنكاس وحا هذا تفضل يد إراد إلى حق سكاء هذا بمعنى عمل عاصم يسجل ندم مكو جليس دوين إلهي بقوة تفضل تبارك وتعالى ومعنى ذو حوي الجنة وحي كوينت أنت دونته عمل قفك والله إيمانه الله وحوري ذلك إن إلهي وحوي عذابك نكائل عليه جنانه قريب والفوز والليبان والعظيم وين فإنما يسرناه قرآن كوان فإذن بلسانك اللغة هذا لعلهم يتذكرون سيمرك أيوان سمام اللغة هذا إلهي كفو يدي القرآن كان نسود جني وعن خارجنا سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللغات واللغة هذا عربين أو اللغة هذا مدى أفصح وأجلاها وأحلاها وين ومركها معاوي ونصر رين تبدن وين ومحي لعلهم يتذكرون سيدا يفهمان ومركها أبرتان كي يتفهمون ويتعلمون والله المركز الله وحده تبارك وتعالى فارتقب سوق إنهم يجوا مرتقبون كو سوق يوي مركا سيدا يجوا يسوق يعني وليه إن كان يسكر من دورا سيدا وقيليه وحوي دوائرتي مسوين كل عيوة السكواي السكسوق سيوليهين أي وحوي نصرة يا الظفر يا جوشبة هي كلمة دين يسرنا قطبة
aad ku heli doontaan nabi Allah tabaaraka wa tacaala markaasay ogaan doonaan cidda markaa wanaagga iyo guusha markaa ay raacayso fa innahaa laka ya Muhammad ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسل إلهي بس واجب يالي إن وحوي إلهي رسوشيس يأنبيدس مركع أي وحوي يقول يسلسوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وما نك أن وحبترين تلك ظالمين تعودوا دار كود ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وإلى هنا نختتم وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.